Tamay. Canay. Can Ay. Tanay. Can Ay. Yo xaliimo ma la baxdido sabada ku saracda janay qaba ma karne. waa madadaaliye soo jiitay indhaha dad badan oo ku xiran baraha bulshada sida TikTok, Facebook iyo YouTube. magaciisu waa Xuseen Kingoin, laakiin dad badan waxay u garan og yihiin kusimaha madaxweynaha TikTok. Xuseen bartiisa waxaa ku xiran kumanaan qof kuwaas oo aad ula dhacay habjilinkiisa. waxyaabaha uu ku soo caanbaxay waxaa ka mid ah in xiriiro uu la sameeyo ajaanib reer galbeed ah iyo dad kale oo Soomaaliyeed. ninkan baraha bulshada loogu yeero nin culus ayaa hadda waxa uu sameynayaa muuqaal ka duwan kii hore maadaama uu shukaansanayo gabar magaceeda ku sheegaysa Nawaal. waxaa laga dheehan karaa muuqaalkan inay sameynayaan xiriir jacayl oo uguba inkastoo shaki weyn ay ka qabaan in fiidiyowgan uu ku faafo baraha bulshada. Master Kingoin ayaa sidoo kale muuqaal kale kula hadlaya gabar u dhalatay dalka UK, waxaana dadka ku xiran uu ku madadaalinayaa sheekooyin dhexmaraya isaga iyo gabadha, isagoona mararka qaar dhexgelinaya af Soomaali aysan fahmi karin gabadha ajaanibta ee uu la hadlayo, kaas oo ugu shacteynayo dadka ku xiran ee Soomaalida ah. And you, sweetie? I'm good. Yeah, where you come from? England, London. Wow, 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 wow. Waxaan cawado dheeraada meeno England. Waxaan qasaarada Ingiriiska aqaanina ay dhabe. Wait for me, I talk some people my language. Okay. Okay, where you stay, sweetie? London. Wow, so beautiful girl, man. Thank you. Oh, what's your name? Hannah. Hannah. Yeah. Nice name. Good name. Thank you. Oh my God, I like it. waxyaabaha cajiibka ee laga calaamadeeyay muuqaalkan ayaa ah in Xuseen uu yahay shakhsi dad badan u shacteynayo isagoona la hadlaya dad ajaaniba. maalin kasta ayuu sameeyaa video live oo kula hadlayo dadyo kala duwan oo ku sugan caalamka, kuwaasi oo inta badan ay soo jiiteen taageerayaasha ku xiran isla markaana ugu xiran bartiisa TikTok.